kolay nimankii Manchester City ahaa 6 gool ay maanta ku adkaadeen iyo gool iyadoo ciyaartooyga Kun Aguero uu galabtu dhaliyay 3 gool wanika laga yaabayo waliba Jesus ayaa mid kale ciyaartu ka dhaliyay iyadoo waliba uu gool kale uu David Silva uu Brazil ku dhaliyo wuxuu ahaa gool khatartiisu badan tahay mid kalena aan gool buu ahaayo wala ciidan Manchester City sanadkan meel bay u socdaan muraad bay leeyihiin yaa shaki la'aan City waxaan wax laga qaban karin oo isma dhahaysid De Bruyne ayaaba maqano meeshu waa wada xidigo badan baaba dhoobano iyo maanta xitaa Sterling iyo qaraga qaar ay iska fariisteen iyo Sane iyo Mahrez inkastoo Mahrez iyo Sane gadaal laga keenay haddana Walker iyo Sterling lama isticmaalinba waliba David Silva ayaa maanta garoonka la soo galayo wiilkiisa dhicisnimada ku dhashayo hadda soo caafimaadaya marka City 6 gool bay ku adkaadeen Kun Aguero oo 3 gool Jesus oo isaguna gool iyo waliba gool u dhaliyay ciyaartooyga kale ee la yiraahdo Silva goolna wuxuu ahaa goolo marka wax badan oo taariikheed bana ciyaarta laga bartayo City ninka Aguero la yiraahdo 2008 wuxuu dhaliyay 5-3 leeb uu dhaliyayo waxaana sanadka kan 2008 ku furtay hadrigiis ugu horeeyay ciyaareed waliba waxyaabay ugu muhiimsanaa waxa maanta ka mid ahaa in David Silva uu ciyaaray kulankiisii 250aad ee ciyaaraha Premier League waxaanu Manchester City la guuleystay 167 jeer waliba 75 goolna waa uu caawiyay 49 gool waa uu dhaliyo 3 koobna waa qaaday waliba uu qaadayo De Bruyne ayaa maanta ciyaartu daawanaya isagoo dhaawacan waa ka Kevin 3 bilood buu maqnaanayaayo lagana yaabo inuu ka soo hordhaqsado ninku hadda waa maqnaa laakiin laga yaabay inaan la tabino xilli ciyaareedkan san dadkan galabto arkay war meesha ciyaartoy baa dhoob alla maxay ka maqaar ciyaarayaan kuwan ku wardeela waa ku tacabeelayo si fiican buu kamal dariga u baray waliba ciyaartooyga Alan Shearer ayaa ninka ugu hadriga badan ciyaaraha Premier League taariikhda oo 12 hadrig ka dhaliyay Premier League hadda Aguero waa ku xigo 9-3 lay isaguna ka dhaliyay Premier League 9 hadrig buu dhaliyo waxaana laga yaabaa rikoorka inuu gaaro maadaama hadda uu sii ciyaarayo waliba Benjamin Mendy ayaa 3 gool hadda Premier League caawiyay xilli ciyaareedkan waa ninka ugu caawinta badan Premier League sanadkan wadinku waa iska furdaynaya kubaddu waa nin laga yaabayo waa gamaya maanta oo dhan oo Allah wuxuu khatar badayo sanadkii hore dhaawac baa hayo ninka kano marka 3 caawin buu sii maraya ciyaartooyga madow ee Faransiis Benjamin Mendy waliba waxyaabaha kale muhiimka ah waxay ahayd ninka la yiraahdo Silva ayaa maanta markii ugu horeysay Brazil gaaray 250 ciyaarood oo kuwa kan u ciyaaray Manchester City waliba gool hayaha kan ee la yiraahdo Ederson Moraes ayaa noqday gool hay ugu horeeyay ee Manchester City taariikhda gool caawiyay Premier League 6 gool iyo gool oo maanta City waa ka xsaneedo ciidan ma aqaan muraad bay sanadkan markale leeyihiin